السلام عليكم أصحاب تقاليقة waa idin salaamay kusoo dhawaada hooy macaan channel cooking sida aragtaan waxaan noo wadaa si fudud oo loo habaysan karo buskut yacni loona shaqadeyn karo adigoona waxba aalad iyo waxyaabaha makiinadaha iyo waxyaabaha lagu jarjaro buskutka isticmaalin markii aan bogay oon dhameeyey saan uu igu soo baxay gacanteeda aan isticmaalay midi ayaan ku jarjaray marka soo dhawaada daawasho wacan bismillaah waxaan bilaabanaynaa inaan habaysano cajiinka baaquliga waxaa igu jiro 2 koob oo bur ah waxaa kaloon ku shubayaa wax yar oo cusbe ah waxaa kaloon ku darayaa hal qaado oo baking powder ah waxaa kaloon ku darayaa wax yar oo vanilla ah vanillada iska carfis leh waaye waxaa kaloon ku darayaa koob halfkiis oo sokor ah haddii aad rabto sokorta waa badsan kartaa kadib waxaan u baahannahay 3 xabo ukun waxaan rabaa ukunta inaan gooni u garaaco wax yar kadib waxaan ku shubayaa burkii ayaan ukunta ku shubayaa waxaan bilaabaynaa markii aan si fiican u cajiimano cajiinka buskutka waxaan ku qasayaa aniga biyo baaquliga waan ka bixiyay cajiinka waa aragtaan si fiican aan rabaa inaan meeshan dhulka ugu xasho waxaan ku shubay qiyaastii 2 qaado oo subag ah cajiinka si fiican aan u soo xashtay waa aragtiin marka 2 qayb aan ka dhigay qayb ka mid ah ayaa waxaan ku soo xashay wax yar oo kakao ah okay asxaabey labadii nooc ee cajiinka kamid ahaa ayaa mid walba waxaan ka soo goostay gabal waa aragtiin amaleynaya wax yar ka soo goostay kadib adiga sidaas yariistaan rabaa inaan u kala bixiyo marka hadda waxaan bilaabaynaa inaan naqshadeysano buskutka qiyaasta marka isla ekaadaan ayaa waxaan rabaa waa isku dhajinayaa markaasaa iskugu dhajiyo kor ayaan ka riixayaa yacni si wax yar uu u fidsamo kadib qaybta u dambe ayaan saa u jiidayaa qaybta hore iyo qaybta dambe yacni sida naqshada ma aragta caleenta geedka kale inay kusoo baxdaan rabnaa qaybta hore iyo qaybta dambe saa usoo yara jiid marka waxaan rabaa hadda inaan mariyo sokor markaa sokorta u mariyo sokorta waa ka bixinayaa waa aragtaan waxaa soo qaadanayaa midi ama maqas wax alaal waxa haysato kadib qaybta kore ayaan saa uga jeexayaa naqshad qurux badan ay ku soo baxaysaa maasha Allah waa ka wada heli doontiin haddii aad haysanin waxyaabahan buskutka lagu qurxiyo lagu jajaro aad iyo aad ku anfacaysaa marka ka faa'iideysi wacan هاي قروح مكسو بحينو ما شاء الله نقشد قروح بدن كسو بحي marka kulli ani halka naqshada rabaa inay tuso caawa marka kulli saana soo diyeelaya buskutka aad u jilicsan yahay mogta cajiinkiisa marka wax yar oo bur ah aan ku daadiyay dhulka si uu iiga dhigin qaybta cadeed ayaan meesha dhigay waxa kale oo soo qaadanaya qaybta kale ee kakao amarina aan ku soo kala reeyay sidii hore uma ku sameynaynaa waa isku dhajinayaa kadib ayaan dusha ka riixayaa hal mar marka isku dhigto ayaan hal mar dusha ka riixayaa sida aragtiinbo kadib qaybta kore yacni dhinaca hore iyo dhinaca dambe ayaan saa u yara jiidayaa si yacni naqshada inoogu quruxsanaato adii sidii tii hore aan soo yeelno kale xabadii hore intusay camal waxaa soo marinayaa sokor wax yaraan kala bixinayaa marka uu kala baxo
intaana jarjarin waxaa marka hore laazim inaan marino in sokor sokorta muhiim ahan asxaabi waa iska dhaafi kartaa kisto adii warkii uu ovenka kasoo baxo unbaa dhaldhalaal yareysiinaysaa uun iska qurxis marka sidii tii hore kale ayadana labada dhinac ayaan ka sarsareynaa jileec waaye cajiinka iska ilaali naqshadee ka halaabin markii aa habeenaysid haddii aa ka cabsato inuu markaa qaadaso kale uu kaa kala dhaco weelka aa foornada ku gelinaysa ma aragtay dushiisa ayaa ku habeenaysaa yacni markaas sokorta marinaysa markaa jajarayso weelka aa foornada ku gelinayso ovenka oo diyaar ku ah dushiisa oo ku habeesan kartaa waxba dhib ma leh ما شاء الله تبارك الله سانو كسoo baxay aa aragtiin markii aan soo jaray oo soo sharaxay buskudkii waxa ku soo safay saxankii foornada aan ku habeen lahaa marka hadda wuxuu diyaar u yahay in foornada la geliyo foornada kulul oo si shidneed oo diyaar isi ah ayaan gelinayaa 180 uu joogo kuleelka aniga waxaan rabaa hoos bas inaan uga shido adiga hadii aad rabto inaad guduudiso marka ugu dambe aad ka soo bixinayso ayaad kor kaga guduudinaysaa 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo marka uu kor u bislaado waa ila arki doontiin sidoo noogu soo baxo insha Allah hayehe asxaabteeda qaaliga saanu ku soo baxay buskudkii marka foornada ka soo saaray quruxdiisa hay waa aragtiin ma sha Allah tabarakallah marka buskudka wuxuu kamid yahay buskudida gurigeena aad iyo aad ka looga xiiseeyo sababtoo wuu fudud yahay markii la habeenayo la jaraayo aad iyo aad u fudud yahay quruxda ku soo baxay waa aragtaa marka ani buskud aad iyo aad u guduudan ma jecel ilaahay amarkiis adii buskud guduud aad rabto oo qurux badan marka ugu dambeeyso oo ka bixinayso foornada ayaa wax yar kor kaga shidaysaa kadib uu ku guduudanayaa asxaabi waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen qaybteenan maanta intaan dib dambe